السلام عليكم وصاحبك شاهد بيساني فيديو أنا وحنوجه هذا دونا عنده أد مجالات كسوقدة تكمل ما كنت حضرتها وما في رسا وحيابها أي ككوبيهين أما واحد لقى سميه مجالات مركان لهايو وضن كي كما هذايو وضن كيني بقول كي بقول وحيابها لا عنو وحلال وهو وضن إسلام لكن مركا أد قربها سوء أديد واحد لا كل مثال لبا شيء وكدوان waddankaagii waxa aad ku haysatay ama aad ku dhaqmay jirtay shayga koowaad wuxuu yahay diin ka duwan diintaada ayaa la kulmaysaa shayga labaadna wuxuu yahay dhaqan ka duwan dhaqankaagii qurbaha markii la dhahayo qurbuhu nooc doono noqon karaa ama qurbo daris kula ah ama qurbo kaafu hadaba qurbaha markii la soo aado cunooyinku badanaa waxa la geliyaa firijeeradaasi si aysan cunadu aysan isku bedelin ويرتاح عنا فريش سيدا لغو هلو هدي عنا فريش اللي هلنا بدنا دادكا إسلاماركي إيبسدا أما إسلاماركي وإسبداليسا عنا دو حتى هدي فريش تهي وحلقا يابا إن بعرمين تلغو بديي أو إسلاماركي حلقا إيصاب حلهاد حلق كدو لصوص عرو عنوينك فريش أما كواليتوت كودا آد وناكسين هاي وقالي ويكو أدك تهي قفكا مركاسي أجنبيك إنو إيبسدو حتى dadka wadanka u dhashay way yar yihiin inta ay ibsadaan waayo waa qudaar ama cunno aad qaali u ah hadaba maanta waxaan kula wadaagayaa cunooyin badan oo waxa jira marka aad dukaanka aadid oo aad istiraadi gado oo ka kooban qudaar oo ka kooban cabitaano aad isleedahay marka muuqaalkooda aad aragtid waa wax qudaar kaliya ah laakiin ku jiro wax adigoo laga xarantinimeeyay tusaale ahaan sida hilibka qansiirka ما تصالحان وحاجر عبيتانadaasi oo ku qoran alcohol free laakiin aad ku arkaysid in alcohol uu ku jiro marka aad isku daydid inaad si fiican u akhrisid hadaba waxaan rabaa videogan 100% inaan kula wadaago mar walba aad wax soo gadanaysid shayga aad soo gadanaysid qaybta dambe waxa ku qoran waxa uu ka kooban yahay waana ku tusi doonaa iyadoo video ahaan gaarigan ayaan qaadan doonaa gaarigan cunada cunooyinka tirada badan ama alaabta tirada badan aad soo qaadanaysid baa loogu talagalay awal ma qaadan jirin laakiin hadda sharciya laga dhigay waayo waxa laga baqayaa xanuunka coronavirus qaybtan aad arkaysaan waa qaybta qudaarta qaybteeda aad ayay u yar tahay dukaanka qaybtiisa kale ayaa ka weyn qudaartu badanaa waxay ka baqaan inay halaawdo waxa ku xigi doono qaybta ukuntu waa kala duwan tahay halkaas wajahada waxa idinkaga muuqda waa ukun kartoomo kala duwan kartoon buluuga cagaara wayna kala qaalisan tahay waxayna ku xiran tahay sida loo xanaaneeyay doorada ama digaagada haddii si wanaagsan loo xanaaneeyay ukumuhu dhadhan ayay yeelanayaan qaybtani waa qaybta rootigu sidiisuna waa kala duwan yahay waana kala qaalisan yahay waxa laga sameeyana way kala duwan yihiin qaybtana u jeetaan waa qaybta cunada waxyaabaha carfiya lagu daro sida heelka qorfaha qaybtana u jeedaan waa qaybta caanaha dhammaan waxyaabaha caanaha laga sameeyo caanahaasi ama laga keeno looda ama laga keeno ariga wax walba caana laga sameeyo qaybtan ayaa laga helayaa waana badanaa waxaad ka helaysaa yogurtka ama caanaha caadiga oo la cabo ama lagu darsado shaaha qaybtan kalena waxaad ka helaysaa dhammaan baastada noocyadeeda kala duwan iyo waxyaabaha burka lagu fixiyo oo burka kiciya meeshana u jeedaan waa firijeerkaas oo lagu kaydiyo dhammaan qudaarta noocyadeeda kala duwan qudaarta wax walba ha ahaato baca ayaa lagu shubaa ama kartoomo ayaa lagu shubaa halkaana ayay ku kaydsan yihiin mid ka mid ah ayaan banaanka u soo saaray qudaarta dhammaantood kuma wada jiraan hilibka laakiin qaar ayaad ka helaysaa muhiimadeeduna waxay tahay inaad ka digtoonaato hadda qudaarta marka aragto waxaad leedahay dhammaan waa qudaar iyo baasto laakiin waxa ugu sareeya ee guduudka ah waa hilibka doofaarka waa kana meesha aan ku sheegay dhan kale ayaan u digadiyay meeshan ayaa la rabaa inaad ka akhrisid waxa uu ka kooban yahay waxa aad gadanaysid hadda biisadaan oo kale marka aad aragtid waxaad leedahay waa biisa caadiya laakiin marka aad dhanka kale u gadisid waa kaasa uu ku qoran yahay shafaan flash waa hilibka doofaarka waxa laga yaabaa kartoonkan oo kale inaad aragtid ay ku muuqato baradhada iyo qudaarta ay istiraadi wax macaan waay gado laakiin haddii aad akhrin qoraalka waxa ku qoran inuu ka kooban yahay baradho la shiilay iyo ukun iyo hilibka doofaarka mar walba waxaad ku dadaashaa inaad akhrisid waxa aad gadanaysid haddii aad xataa internetka waa ku qori kartaa waxa uu ka kooban yahay google-ka haddaad ku qorto ishbeeg waxa kuu soo baxaya waxa ishbeeg uu yahay
qaybtaanina waa qaybta hilibka lagu darsado dhadhanaanka iyo sida digaagada oo kale waxyaabaha aad ku dhadhanaansanaysid qaybtaana waa qaybta cunada fudud oo xilliga habeenkii oo kale la cuno badanaa waa cuno la soo qalajiyay oo caagado ama kartoomo lagu soo shubay kadib guriga marka aad geysatid biyo kulul leh ayaad ku shubaysaa waad walaaqaysaa 5 daqiiqo kadib oo cunaysaa mid kamid ayaan soo qabanayaa dhamaantood male hilibka doofaarka laakiin midkaan aan soo qabtay ereyga ku qoran ishbeek ereygaasi ku muuqdo waa erey Dutch ah waana Ingiriis waxa la yiraahdaa bacon wadanka aad joogtid marka aad wax soo qabatid luqadda looga hadlo wixii marka aad qortid ereyga wuxuu uu yahay Google-ka aad gelisid kadib sawir ku dhufo sawirka marka aad ku dhufatid waxa ku soo baxaya ishbeek waxa uu yahay qaybtaana waa qaybta nacnaca badana caruurta ayaa jecel horta dhamaantood kama wada koobno laakiin qaar ayaa ku jira muhiimadda aan kula wadaagay videoga waxa ay tahay inaad ka digtoonaatid oo aad akhrisid horta waxa uu ka kooban yahay mid ayaan soo qaban doonaa midkaasi badana caruurta xilliga ay dhalashada leeyihiin bay u gadaan horta markii nacnacan laga hadlayo badana waxa ku qoran gelatini wax la yiraahdo gelatinigu xayawaanada kale waa laga sameeyaa laakiin waxa ugu badan laga sameeyo waa hilibka doofaarka marka way ku sii qoraan marka ay gelatini ku qoran hadda meeshaas hadda way ku qoran tahay gelatini kadib bracket bay furayaan wadankaaga luqadda loo yaqaan hilibka doofaarka bay ku qorayaan marka waa kana saas ayuu u muuqdaa kan kale aan soo qabto waa nacnac badana waxa laga helaa meesha filmada xataa lagu daawado si filimka loogu daawado halka anagoo aan daangada ama macnaha saloolka aan cunno qaybtaani aan gali doono waa qaybta cabitaanka hadda cabitaankani waxa ku qoran in alcohol free la qaybta hoose waxa ku qoran eber 5% inuu ku jiro haddii aad dhor dhala ka cabtid macnaheedu waxay tahay haddii isku tagtagaan inaad wax badan cabtay dhaladaani waa dhala caadi ah waxa ku qoran 12% in ay ku jirto waa qamro caadi ah marka badana muhiimadeedu waxa ay tahay cabitaanada aad gadanaysid inaad ku dadaashid inaad akhrisid waxa uu ka kooban haddii aad videogan ka heshay haddii ay jiraan dad asxaabtaada ah oo qurbaha ku nool oo aad la jeceshahay mar walba inay ka taxadiraan waxa ay cunayaan wad la wadaagi kartaa waa saaxiibka Shahid Bisani oo ku dhahaya haday maanta Eid ku tahay taariikhduna 23 bisha shanaad 2020 waxaan ku leeyahay Eid Mubaarak haddii aad sooman tahay oo aad isleedahay bari Eidne waxaan ku leeyahay dadkii acmaashooda laga aqbalo Allah ka dhigo صومكنا هكو وناكسنادو